بسم الله الرحمن الرحيم داود يال ميل walba joogtaan ku soo dhawaada war wixii daafaha caalamka iyo gudaha dalka bay naga soo gaaray aad ku daawataan Somali News 724 qodobada aan kugu hayno warkeena waxa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay guusha weyn ee Soomaaliya ay ka gaartay qaramada midoobay weerar culus oo mar kale ka dhacay duleedka Beledweyne guddiga isku dhafka ah ee baarlamaanka federaalka oo war ka soo saaray kuraasta la xawilay akhbaaraadka caalamkana waxa kamid ah midowga Yurub oo diiday in looga soo dhoofo Mareykanka iyo Shiinaha qodobadaas iyo qodobo kale idin qarinaya ayaa kaga daba doontaan warkayna u diyaar garooba saaxiibayaal warkan waxa idin akhrin doona aniga Ismaaciil Cali Ajaay warkii oo dhan dagaalyahano ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa mar kale weerar ka fuliyay duleedka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan weerarka oo ah mid qorsheysan ayaa ka dhacay xeelada ciidamada dawladda ee bacaadaha taas oo ku taala agagaarka magaaladaasi dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa lagu soo waramayaa in xalay weerar gaadma aha ay ku qaadeen xeradaasi kadibna uu xigay iska horimaad ka dhaca halkaasi ma cadda ilaa hadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaasi iyo dagaalka intaba dhinaca kale saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda ayaa sheegay in ay iska caabiyeen weerarka lagu soo qaaday isla markaana haatan xaaladdu ay tahay mid degan habeen hore ayay ahayd markii Al-Shabaab ay weerar loo adeegsaday madaafiic ku qaadeen saldhigga ciidamada Djibouti ee ku yaala galbeedka Beledweyne madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu hambaliyay shacabka iyo golayaasha dawladda federaalka guusha taariikhiga ah ee dhanka diblomaasiyadda kadib markii dalkeena loo doortay gudoominta golaha guud ee qaramada midoobay madaxweynaha oo uu weheliyo wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane Axmed Ciise Cawad ayaa mareegaha internetka kula xiriiray madaxa ergada Soomaaliyeed ee qaramada midoobay mudane Abuukar Daahir Cismaan oo loo doortay madaxweyne ku-xigeenka golaha guud ee qaramada midoobay madaxweynaha ayaa tilmaamay in hogaaminta Soomaaliya golaha guud ee qaramada midoobay ay muujinayso ixtiraam iyo qadarin caalami ah oo uu kasbaday dalkeena sanadihii la soo dhaafay taas oo ku aadan go'aamadeena arrimaha dibadda aragtideena siyaasadeed iyo in shacabkeena Soomaaliyeed ay garab taagan yihiin dawladooda ayna ka go'an tahay dib u dhiska dalkooda Soomaaliya waxa ay si buuxda ugu soo laabatay fagaarayaasha caalamiga ah iyadoo ay naga muuqato firfircooni hal abuur hogaamineed dhexdhexaadnimo ilaalinta xasiloonida gobolka iyo ka shaqaynta danaha wadajirka ah ee dhinacyada horumarinta iskaashiga iyo wax wada qaybsiga madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ku bogaadiyay diblomaasiyiinta Soomaaliyeed sida ay uga go'an tahay soo celinta maqaamka iyo doorkii horumarineed ee dalkeenu uu ku lahaa caalamka isagoo u rajeeyay ergada Soomaaliyeed ee qaramada midoobay in ay si nug leh uga soo dhalaalaan mas'uuliyadda adag ee loo doortay dhankiisa Danjire Abuukar Daahir Cismaan Abuukar Beyle ayaa madaxweynaha la wadaagay warbixin ku saabsan dadaalka ergada Soomaaliyeed ee qaramada midoobay ee ku doonayaan hirgelinta qorshaha iyo higsiga dawladda federaalka Soomaaliyeed ee sanadka 2023 kaas oo ah in dalkeen uu ku guuleysto xubinnimada golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo haatan codsigiisa la gudbiyay guddiga isku dhafka ah ee baarlamaanka federaalka oo war ka soo saaray kuraasta la xawilanayo gudoomiyaha guddiga wadajirka ah ee dhamaystirka xeerka sharciga doorashooyinka xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow ayaa markii ugu horeysay ka hadlay cabasho ka soo yeertay beelaha qaar taas oo ah in kuraastoodii golaha shacabka deegaan doorashadooda loo wareejiyay gobol ama deegaano aysan degin xildhibaan Ibraahim Isaaq ayaa sheegay in arrintaas aysan ku dhicin ku talagal balse ay tahay khalad ka dhacay daabacadda xeerka asteynta kuraasta golaha shacabka haatanna ay diyaar u yihiin inay saxaan sidoo kale waxa uu sheegay in sidii loo sixi lahaa khaladaadka jira ay la kaashan doonaan guddoonka golaha shacabka isla markaana ay qaadan doonaan talooyinka ay soo jeediyaan xildhibaanada aragtida ka dhibanaya xeerka asteynta kuraasta golaha shacabka wixii khalad ah oo ku jira xeerkan badana waxay ka dhaceen daabacadda haddii aad aragteen
kuraasta qaar oo nambarka iyo meesha aysan islahayn waan saxaynaa annaga oo guddoonka kaashanayna soo jeedinta xildhibaanadana waan qaadanaynaa wixii nagan anfaca marka waxaan caddaynaynaa in xeerkan ayuu yidhi guddoomiyaha guddiga wadajirka ah ee labada aqal Ibraahim Isaaq Yarow. guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ka hadlay doodii xeer asteynta kuraasta golaha shacabka oo hor yaala golaha ayaa sheegay in kuraasta loo wareejiyey gobollada aysan deganayn beeshii lahayd ay khatar ugu jiraan inay lumaan. guddoomiyaha guddiga wadajirka ah ee dhammaystirka xeerka sharciga doorashooyinka xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow ayaa xildhibaanada golaha shacabka ugu mahad celiyey siday u ansixiyeen saddexdii xeer ee kan ka horreysay kuwaas oo dhammaantood ku jira sharciga doorashooyinka. guddigana loo xil saaray inay soo diyaariyaan. guddigan ayaa loo xil saaray in uu soo diyaariyo 4 xeer oo kala ah xeerka matalaadda gobolka Banaadir, xeerka qoondada haweenka, xeerka asteynta kuraasta gobollada waqooyi oo ay kalfadhigan bilowga ah ku ansixiyeen xildhibaanada golaha shacabka, iyo xeerkan haatan hor yaalla ee asteynta kuraasta golaha shacabka kaas oo doodiisu ay ka furan tahay fadhiga golaha shacabka. wuxuuna codsaday Ibraahim Isaaq in la ansixiyo xeerkan inta aan la gaarin bisha Julaay oo fooda nagu soo haysa. imankana akhbaaraadka dibadda. midowga Yurub ayaa shaaca ka qaaday 14 dal oo muwaadiniintooda loo arko inay bad qabaan, kuwaas oo loo ogolaan doono inay qaaraddaas booqdaan wixii ka bilowdo 1 Luulyo iyadoo uu jiro cudurka coronavirus. Maraykanka, Brazil iyo Shiinaha ayaa ka mid ah dalalka laga mamnuucay inay booqdaan Yurub. dalalka la ogolaaday waxaa ka mid ah Australia, Canada, Japan, Morocco iyo Kuuriyada Koonfureed. midowga Yurub waxa uu sheegay in ay diyaar u yihiin inay Shiinaha ku daraan liiska haddii Shiinaha heshiiskaas la mid ah ay u ogolaadaan dadka Yurub. diblomaasiyiinta ayaa sidaasi sheegay. waxaa xuduudaha la isugu furay muwaadiniinta Yurub ku nool ee safarada isaga dhex gooshaya, waxaase si gooni ah loola macaamilaa muwaadiniinta UK kadib markii dalkaasi ka baxay Yurub. liiska wadamada bedqaba ayaa la filayaa in dib u habeen lagu sameeyo sida dalalka Algeria, Australia, Canada, Georgia, Japan, Montenegro, Morocco, New Zealand, Rwanda, Serbia, Kuuriyada Koonfureed, Thailand, Indonesia iyo Uruguay. dowladda UK ayaa ku jirta wadaxaajood ku aadan waxa loogu yeeray bundooyinka hawada oo ay la leedahay wadamo ka tirsan midowga Yurub si aan fayraska corona u horjoogsan. fasax hagaaga oo ah kan ugu mashquulsan Yurub isla markaana malaayiin qof ka helaan shaqo. midowga Yurub ayaa isku dabaridaya habraaca lagu maaraynayo nidaamkan oo lagu go'aaminayo wadamada qaba iyo kuwa aan fay qabin. salaadsadan ayaa la filayaa go'aanka 55% wadamada Yurub ayaa saxiixay liiska oo matala 65% dadka midowga ku nool, iyadoo ay jirto kala qaybsanaan. wadamada qaar ayaa qaba Spain in la xoojiyo dalxiiska, haddana raba inay digtoonaadaan waayo COVID-19 ayaa aad u saameeyey, iyo wadamada Greega iyo Portugal oo iyagu ku tiirsan dalxiiska laakiin aan cabsi weyn ka qabin fayraska. warkii aad ku daawanayseen Somali News 724 anigoo Ismaaciil Cali Ajaayana halka idinkaga akhrinayay. daawadayaal waa naga intaan warkan lacayn aan ku kulmi doono waa anigoo Ismaaciil Ajaayana ku dhaafiya sida ay nabadgelyo si wararkeena iyo warbixinadeennaba ay ku soo gaaraan. subscribe gambaleelkana daawanaysiin shirkadaysa asxaabtaada kale ay u gaaraan.